dadka wareysa barnaamijyada wareysiyada inta badan waa barnaamijyo ugu adag waay caqabadaha marka soo jii kara nafsiyan iyo waxa u kala qaadayna kuwa shaqada quseeyay iyo kuwa nafsiyan u kala qaadayna horta barayser nafsiyan inta badan ma jiro السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أصحابتي كحرن يوتيوب كنا برشدون ميديا سلام كدب حرنا مع المهن وهذه كم مقنع حتى مع المهن بلوي كان سمراهن وهذه كم مقنع مروك ولا كلا مكان بليسي لابد كلها تزدحي برامج عصبة أصحابي معنا أصحابتي السيدة عادية يوتيوب كان قفل بوجرو قفل بعصمة إمادون وحق عصنا إن شاء الله سبسكرايب نموصار لايك شير كومنتنا بعدين كنا ما أنت وحقوا عزومن يوتيوب كنا وري وين وري محمد حسي يمني إذا عدوا قصة كل بس كانوا شيء دون هذا علمه وري سلوه إن شاء الله برامج كسي قلتنا عطوا مركورة بحكولي سلوه وما سنتهاي عثمان وهران أصحابتي والسلامي برشدون ميديا تنلبات وكله هاي يوتيوب برشدون أصحابتي هذا آد إماتيين والسلامة آد وين وري محمد حسي ماشان حيا دور 10 سؤالات خاصة waxaan ku soo koobnay 10 su'aalood warqadda aan ku xusan 10 kan su'aalood waxa la rabaa ninka in lagu jafo asxaabta ya marka insha Allah su'aashku waxay waa kuma Yemen horta Yemeni waa kuma waa su'aal muhiim ah ugu horreyn horta Yemeni waa ninkan ku hor fadhiya asxaabtaadana hor fadhiya magacaan horta Yemeni كان شيء كان أنت أنا كل شيء مجا مش قيمة عربة أنا كل شيء أقول تنكواد أنا وقت جي عن وحبر شيء ودي أما با وحبر شيء أنا كل جري بريمريج أما با دكشي قد حام كل جري أيوة مجا عني بحي ميت كم إذا تيم كأصحاب تاني بحي إنك الصوص أهين مجا رسمي قاوي يعني ناس كذا وحو هاير مركز يفصل هاي محمد أبو غادر عداق علىها مركز وحو بحي واتقانا عياريها كان سعيد يمني و MCC وسعيار جرا إن بدل أن تغيير جرا حلقة خرج الصومالية مركز أسام أنت بدل شيء جرا ساس مقع ماش وقرا عاي تنكله يمني وأنا كان أصحاب تاع ما نطور فريا وأنا ما صنتها هذا ما صنتها هاي السيد ونعكسر عبد الله وشوكتي وحكومة يمني سؤال لو بحسيجي أصحابته حالكي كسر بالعوضي هل يمكن ولا شيء إلين قفل بحصمر دون عجب حصمر دباته ودبان وبوليسنا مكة حالكي كسر بالعوضي مركا هل يمكن ولا شيء وأمانة الصحف وين أقطها فهي كذا ما سنتاي أرد صحف وين صح أصحابته صحف وين عقامي لكن صحفي واحد لكن وين تايمي لكن ورجدي ذا مركا حالكي كسر بالعوضي ورجدي ذا aniga kulley waxbarashadeydii dugsiga hoose waxaan kusoo qaatay degmada Gurceel oo kamid ah degmooyinka gobolka Galgaduud balse hadda gobolka Mudug lagu daray oo la isku yiraahdo Galmudug halkaas aan dugsigeygii malcamadeeda Quraanka kusoo dhigtay ilaa ay dugsigeygii hoose xagaas kusoo dhameystay dhexe halkaas aan kusoo bilaabay aad weyn walow inta xamar aan ku dhameystay waxbarashadeeda dugsiga dhexe secondary-ga ilaa maanta aan dhiganayo إلا جلاسك قدام بيعمل تاجناهي مركا هالكاس كسب بلا هالجنكيجا أوكي سكول كسب بالواضي محسوس تاع أدي صح سكول أبلال كسب بلا قرعال إلا هذا أنت لو كلية لا حرمه بدن وكلية هاي قرعال إلا دوس مريم من حرمه كلية وصدقت أدي ما شاء الله مركا محمد حسي يمني مدام عطاهاي أرض الإكتاء فصل كفنفور أهنا قف شقية سيد عادي قامك وام حي شغلة سهل أقول إيه بس ضمك إنسان جعلان شغلة لو دي وحياة وكل أكون جرا وام حي شغلة هذا مكان ما سنت عاي وهران هرتم كلها يعني هالشغلة قبتها صح أما لو شغلة قبتها صح لكن كو مهم سن هرانتي لبكم سجال يتوان waxaan soo bilaabay in aan noqdo kaaliye macallin inaan noqdo macallin iskuul inaan macallin iskuul kaaliye soo noqdo aan soo kaalmeeyo ardada iyo registrationka iyo liisoo dhiibay in badan xaggaas aan kasoo bilaabay kulley ugu dambeyn xoogaa waxaan soo noqday macallin team loo dhiibo
ilaa iyo haddana iskuullada ku yaala muqdisho mid kamid ah dhiga horta shaqadeeda qayb kamid a taas shaqadeeda waaye aad iyo aad qayb kamid a waaye tan labaad 2019 horaanteedii waxaan isku dayay inaan barto xirfadda saxaafadda maadaama hadda heertaan inta ugu badan muqdisho marka la joogo manhajkii iskuulladii caadiga ahay waxbaa laga keeni waayay si saxda ah in bahasha xirfad lagu daro ama qofka uu computer barto ama uu xirfad kala barto ani marka waxaa markaas ii fududaatay inaan markaasi barto saxaafadda si ay igu noqoto xirfad dhigaal ii ah oo kii iyo difaac ii ah si markii aan xoogaa gaabis ka dareemo dhankan aan dhankan kala absahaa macnaha baleen eega waa waxbarashadeeda laakiin baleen b waa barnaamijkaas marka barnaamijkaas isagana ku jira okay marka su-aasha faraad usi gudbayna asxaabta ma jiraan marka caqabado kaa hor yimid intaa warbaahinta ku jirta marka ilaa qofka marka uu wari yahay waxyaaba fara badan oo la kulmaa marka ma jirtay caqabado kaa hor imaaday asdhaaday alla caqabadaasaa ugu muhiimsan oo iga hor imaaday asleedaa ma jiraan hagaag horto caqabadaha way imaanayaan qof walba oo macnaha maanta nool oo socdo caqabad ay ka hor imaanayaan markii saxaafadda la yiraahdo kuma sii jirtaba yacni markii saxaafadan aan aniga bilaabayay idaacaddii ugu horreysay horta aan ka bilaabay waxay ahayd raadiyaha higsi ee muqdisho muddo ayaa la shaqeynayay haddana waan ka tegay waxaan u tegay idaacad kale oo iyadana simba la yiraahdo ayadana muddo aan la shaqeynayay walow aan dib ugu soo laabtay hadda higsi idaacado caan aad iyo aad maadaama inkastoo simba ay magac dheer tahay oo ay tahay idaacad muddo soo jirtay aad iyo aad dhowr iyo 10 sano ay jirto tan kale caqabaduhu way badan yihiin caqabado badan aa jiro waxaa xasuustaa 26 June sanadkii 2021 anigoo Foxbob doontay amaba Foxbob inta badan warbaahinta waxaa la lahaa codka dadweynaha manaha 26 June waa munaasabad weyn oo maalinkii xorriyadda ay qaateen gobollada waqooyi waay Foxbob anoo doontay caqabadaha ugu waaweyn aad dad kala kulmayso waxaa kamid ah dadkii waxaa waaye waa laamiyaday taagan yihiin maaba ani marka daljirkaan tegay markaas ii fududeed aan tegay daljirka markaan tegay waxaan kala kulmay marka dadkii daljirka joogay mid kamida oday kamida aa ugu sameeyey waa maalin farxadeed isma dhehaysid qofaa macnaha jawgiisu bedelan yahay haddana wuxuu ahay qof astaantii qaranka sito oo calanka wato oo wejigiisa ahaa oo ahay حتى ساعات عمره لكن يعني لبسكيسي قابكيس وحاول قف معناها شعورته أي كم وقت معنا كاس وأوتجي سي أن وحقوي ديو درينكيسة ما دام قف كعادي هاي وكان كنت واحد جديس كجرا أما كده حقوي حاجة قف كان أما درينكيسو ما وكان كثير لكن قف كسيور بقى أنا حقوقي مينا فيس كسي وجي جيسة حقوقي مينا وأوتجي qofka markaan damcay inaan Foxbob-kayga ama shaqadeeda guda galo waxaan kala kulmay waji gabax iyo horta koob waxaa la kulmay dharbaxsho waa layla gafay taas dharbaxsa lagu soo riday waa layla gafay see ani kaamirada ila imaan kartaa oo kaamirada ani ay igu soo jeedin kartaa waay ay igu soo waaba i duubtay iga dileen saldhigana geey xitaa ilaa iyo dad ay nagu soo baxaan oo loo warinayo adiga ma lagu duubin codsiga maxaa waaye waa codsi intaan la duubin codsiga ka horeeya in adig ku imaadaan ku dhoniyo saasaan kaa rabaa haye markaad ku raacdo kadib applicationkan aa fulino ninkaan marka waa wuxuu taagan yahay waa i duubtaba marka adiga caqabadaha iska badan yihiin aada ugu dheereed walow xitaa maalmaha kamida intaan maalin simba joogay كوبشين اللي وشوي شاح هذا عقبضوا بدي مرك تاسع وين adkeysi la markay هذا marka su'aashana galeyna maxaa lagu xasuustaa oo aad ka qabatay warbaahinada marka maxaa laga xasuustaa waxyaaba ka qabatay warbaahinada waa su'aal muhiim ah inta badan horto su'aashaas haddaan dib ugu laabto qaabka ay weydiisay yacni ninkee u qaabilsaneyd idaacadaha macnaha waa step waa macnaha qof waa farsamayaqaan qof meel u qaabilsan yahay horta inta badan ani reporter ahay banaankaan warbixinada ka doonaa wararka caadiga baxaan inta badan galaa marar qaar waxaa ii soo raaci jirtay inaan ahay newscaster ama newsbound waxaa la yihahdo war akhriye aan ahay
walow inta badan haddeertan aan war akriyo kusoo aruuray oo reporterkii xoogaa keed meesha maadaama aad iyo aad meeshaas xoogaa inta badan aan u batay inta badan marka idaacadda waxaan ka qaban jiray waa qaybtaas reporterka ama wararka la doonayo marar qaar oo iska jiraan shaqooyin kale oo idaacadda aan u qaban jiray balse inta badan qaybtaas aan u qaabilsanaan jiray idaacadda. su-aasha lixaad marka xoogaa afar su-aal oo dhiman yaa kugu dhiirigeliyay marka inaad suxufi noqoto ama weriyu aa noqoto? wallaahi ani horta markiigii hore mise markaan bilaabay inaan saxaafad barto markiigii hore aan ma fiiri jirinba inaan saxaafad barto waxaan ka aaminsanaa fikir khaldan sida asxaab badan ba hadda ay ka aaminsan yihiin fikir khaldanaan ka aaminsanaa saxaafadda iyo in caqabado badan oo macnaha ay jiraan oo dhanka qofka safetyga ay jiraan laakiin ugu dambeyn yar saaxiibkayga oo hadeertaan aan idaacaddaas isla joogno cabdullahi axmed cabdi kuwatar la yihahdo ayaa markii ugu horreysay ii soo bandhigay oo ugu dhiirigeliyey inaan saxaafadda barto. markii ugu horreysay saxaafad bartay iskuulkaan ka bartay school national ilaa hadda uu shaqeeyaa saxaafad sidaa loogu dhigaa. waqtigaas marka waxaa ugu dhiirigeliyey yarkaa saaxiibkeeya cabdullahi axmed cabdi kuwataro inaan saxaafadda barto. weliba waxaa dhiirinaan fiican kasii helay asxaabtii aan la baranayay oo dadaal iyo juhdi dheer ku bixinayay balse saxaafadda iyo muhiimadda ay leedahay oo diiradda la saaraya. cabdullahi kuwatara marka ugu dhiirigeliyay inaan imaado ama saxaafadda. marka maadaama aad soo hadal qaaday in dadka qaar ay wax xun ka aaminsan qurxun ka aaminsan yihiin ka shaqeynta warbaahinada marka maxaa leedahay dadkaas? wallaahi haddaan ka hadlayo midaas dad badanaa waxay aaminsan yihiin in fikir qaldan saxaafadda laga aamino oo ah yani haddaan saxaafadda gasho waa lagu dilaa waa kanaasaan waa weriye ma noqon kartid waa fikir qaldan kaas. dad badanaa jiro hadda warbaahin waxaa waaye shaksi oo leeyahay iyo waxay kala yihiin warbaahino dowladeed. hadda labaatan aan dhehe 10 sano ugu dambeeyay ama 6 sano ugu dambeeyay weriyaa la dilo qof maqashmaa jiro ma jirto. yacni weriyaasha haddeertaan inta badan waa dad iska maaragtay iska afgaaban oo haddana oo meelaha qaar aan inkastoo haddana warbaahinadu way kala yihiin. warbaahinta hadday tahay warbaahin uu shaksi leeyahay waa warbaahin dhexdhexaad ah yacni labada dhinac intaba waa dhexdhexaad. laakiin markii la yiraahdo warbaahinta qaranka waxaa qasab kugu ah inaad dhinac la safato. weriyaashii marka warbaahinta qaranka ka shaqeynaya baa cid taabanaysa jirin. marka asxaabtan aan leeyahay fikirka qaldan ka aaminsan saxaafadda sidaa moodiin ma ahan. saxaafadda sidaa way ka fiican tahay wayna ka horumarsan tahay. kusoo caalada aad iyo aad. marka maadaama aad tahay suxufi ama weriye laba idaacad soo shaqeeyey meeqa sano ayaa kugu jirtay saxaafadda maxaana ka faa'iiday? wallaahi 2019 sida hore u sheegay ayaan bilaabay barashada mihnada saxaafadda. 2020 waa ka dhammayday macnaha waa dhameeyey. waqtigaasaan bilaabay inaan saxaafad ku shaqeeyo aad iyo aad sida caadiga ah. waxaan ku jiraa macnaha warbaahinta caadiga marka la yiraahdo saxaafadda marka la yiraahdo waa 4 sano sababta ay tahay markaa baranaysid ba weriyaa tasxiifiyaa tahay. laakiin markii adiga ku shaqo bilaabay waxaa laga joogaa 3 sano. 3 sano maxaa ka faa'iiday marka? wallaahi waxyaaba badanaa ka faa'iiday. horto marka la yiraahdo saxaafadda la baranayo macalinku wuxuu ku siinaa tusaalooyin badan waxyaaba badan habraacyo badan ku siinaa. habraacyadaas markaa aragtid warbaahinta markaad tagtid waxyaaba isbedelayo waxyaabana sidoodii waa macnaha hadda markaan kaaga sheekeeyo oon ku dhaho hebel waa kanaa saan waa markaa ku dhaho iyo markaa hebel la socotid macnaha farqiga udhexeeya xoogaa yar sax. laakiin macnaha guud xoogaa way is yeelanayaan. laakiin waxaa moodaa markaad booskii joogtid in xoogaa farqi u imaanayo. cilmi badan oo bad ah oo intii saxaafadda aan baranaya aana baranna يعني وابرت انت شقده ودي taasna waxaa ku mahadsan bahal saxaafadda la shaqeynayay oo runtii cilmi fara badan ka faa'iiday ma sha Allah. wax ma noo sheegtaa maadaama caqabad aan soo hadal qaaday waraysigaagii ugu horeeyay wariyaha marka qaar caqabad qaar soo wajahdaa jirta marka wax ma noo sheegtaa hal iyo way badan yihiin caqabadaha wariyaha soo wajihi karo. waxaa kamid ah in waxaa ugu badan horta wariyaasha marka waraysyada la yiraahdo dadka waraysa barnaamijyada waraysyada inta badan waa barnaamijyo ugu adag waay. caqabadaha marka soo wajihi kara nafsiyan iyo waxaan u kala qaadaynaa
kuwa shaqada quseeyay iyo kuwa nafsiyan oo kala qaadayna horta barayser nafsiyan inta badan ma jiro oo riyaas hadda saaran waqtigii hore 2010 saarnaan jiray hadda ma jiro inta badan ma saarno caqabadaas ma jiraan laakiin waxaa jira caqabado shaqo waxaa kamid ah waraysi rabtaa inaad ka qaado qofkii waa wacaysa wuxuu ku leeyahay cawada isoo wac yacni waqtiga barnaamijka aad qaban lahayd waxaa sharci u yahay in hal sac ka hor aa wacdo qofka aa waraysiga yeelaysa qofkii waa wacaysaa taleefon kugu dhageysaa amaba wuxuu ku leeyahay amuu kaa dansanaa ama wuxuu ku leeyahay inuu shaqaa isoo baxday waa ku salaamaa barnaamijkan waa ku tushanaysa waxaa shaqo muhiima aa ku tushanaysa caqabadaha marka taasaa kamid a waxaa sidoo kale kamid a in qof yacni mararka qaar wariyaasha inta badan barnaamijyada qabto tahniyadaha sida dad inta badan wariyaal badan ay ku dhacda arkay waxaa lasoo qoraa qof warqadda kuu keenayo waa qof adiga ehladiisii mataqaanid magacyadan lasoo qoray dadka la dhaho mataqaanid qofka naynaysa lagu soo qoraa adiga waxaa ku qasbanta markaa meesha qofka magaciisa inaa naynaastiis u akrisa ku qasbantaha dadka qaar marka waxaa imaanaya warbaahinta dhahahay sababta la igu yeeray magacaasaa rabaa ninka igu yeeray aana rabaa macnaha mushkilad caqabadaa meeshaas ka imaanayso nafsiyan ah oo caqabad aa kala kulmaysid marka way badan yihin kuwaasa kamida marka caqabadaha aad iyo maasha allah waraysigan qaybta ugu dambeysa simirayna asxaabta ugu dambeyn marka waa maxay hadafka nolosha aa kaleeda maadaama aad tahay suxufi iyo macalin maadaama aad sheegtay ugu dambeyn marka hadafka nolosha aa kaleeda maxay tahay waa mahadsan tahay waa su-aal muhiim ah qof walba oo nool wuxuu leeyahay hadaf iyo meel uu hiigsanayo yacni dadka aan hadafka lahayn dadku waxay ku tilmaamaan inuu yahay qofkaas qof nolosha ka dhacsan macnaha marka qofku nolosha uu iska dhacsanayn qof fikiraayo macnaha uu yahay oo miirkiisa uu taam yahay macnaha meel uu hiigsanayo leeyahay runtii ani meesha aan hiigsanayo waxay tahay in aan noqdo nin weriyo weyn oo saxafi weyn aan noqdo aad iyo aad inaan noqdo taas waa hadafkayga tan labaad ani hamigayga wuxuu yahay maadaama jaranjaradii waxbarashada aan saaranahay oo aanay jaranjarada waxbarashada ka degin in waxbarashadana aan boos sare ka gaaro qaybtaas saxaafadana maadaama ay tahay optionka labaad ama brandbigayga oo yahay in uu noqdo optionka igu sarreeya nolosha marka laga yimaado dhanka waxbarashada iyo laga yimaado inuu noqdo optionka igu sarreeya ama hamiga nolosheeda ugu weyn aan kale aad iyo aad ay umahadsan tahay dhammaan asxaabta ku xiran bulshadoon media waxaan leenahay halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa wareysigeeni koobnaa aan la yeelanay weriye maxamed xirsi barnaamijkan barnaamij laceen ah intaan ku kulmi doono waxaan leeyahay aniga iyo weriye maxamed yamani sidaas nabadgelyo insha allah.